subax wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulan dhuusamareeb kula qaatay laamaha amniga dhuusamareeb xilli israsaasayn ay dhexmartay ciidamada Ahlus Sunna iyo kuwa dawladda. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar dhimasho badan sababay oo ka dhacay isgoyska caanka ah ee X Control Afgooye ee Muqdisho. hay-adda sirta ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka been sheegtay qoraal ay shalay ka soo saartay qaraxii X Control Afgooye ee Muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynayaashii hore ee dalkan soo maray. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa la soo taagay xogayay arrimaha gudaha xisbiga UCID ee Somaliland iyo Faysal Cali Waraabe oo ku baaqay banaanbax ka dhanaa Somaliland iyo maxkamadaasi. akhbaaraadka dibadda waxaan idiin haynaa weerar khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay dalka Congo iyo dawladda Faransiiska oo ka digtay in ciidamo loo diro dalka Liibiya. subax wanaagsan dhagaystayaal waa subaxnimo talaado ah tirsiga taariikhduna waa 31 bisha 12 sanada 2019 hordhicii warka subax ee raadiyaha Simba ayaad maqasheen iminkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar sababay dhimasho dhaawac badan oo ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho. bayaan ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay weerar sababay dhimasho dhaawac oo ka dhacay isgoyska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. sabtidii oo taariikhdu ahayd 28 bishan dabayaaqada ah ee 2019 subax hore ayaa waxaa qarax xoogan oo ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X Control Afgooye. marka uu qaraxu dhacayna halkaasi waxaa ku sugnaa dad aad u badan oo iskugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan. dadka ugu badan oo waxyeeladu ay soo gaartay waxay ahaayeen dad shacab ah, waliba dad u sii badnaa arday waqtigaasi u kala hayaamayay waxbarashadooda si ay u soo gutaan duruustooda. sidoo kale waxaa jira khasaare iyana soo gaaray sida ay wararku sheegayaan laba shakhsi oo ama laba injineer oo dhisaysay wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo sida ay wararku sheegayaan bartilmaamoodku iyagoo ahaa iyo sidoo kale ciidamo iyaga markaasi waardiye u ahaa. afhayeenka Al-Shabaab oo warbaahinta Al-Shabaab la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay qirayaan in dhimasho badan uu dhaliyo weerarkaasi dad shacabana ay ku dhinteen, balse shacabkii halkaas ku geeriyooday ayuu afhayeenku sheegay inay yihiin kuwa shuhada ah. bartilmaameedka iyagu waxa uu ahaa kuwa ku soo duulay dalkeena, waana sii wadi doonaa ilaa aan ka sifayn doono ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa afhayeenka Al-Shabaab. sidoo kale waxaa jirta inuu ka hadlay bartilmaameedkoodu meesha ahaa, wuxuu sheegay in ay bartilmaameedkoodu ahaa injineero u dhashay dalka Turkiga oo gacanta ku hayay dhismaha wadada dheer ee xiriirisa Afgooye iyo sidoo kale magaalada Muqdisho. dadka shacabka qaybahooda kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiyay. arrintanna waxay ku soo aadaysaa iyadoo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay sheegtay in weerarkii sababay dhimashada dhaawac badan ee ka dhacay X Control Afgooye Muqdisho ay ku lug lahaayeen dawlado shisheeye. xogta hordhacana ay gudbiyeen madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, laakiinse lama oga isla markaana tafaasiil lagama bixin karo waxa isku soo beegay sheegashada Al-Shabaab iyo qoraalka ka soo baxay NISA. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xalay dhuusamareeb waxa uu kulan degdeg ah kula qaatay laamaha amniga dhuusamareeb kadib shaqaaqa xalay ka dhacday dhuusamareeb. safar la qorsheeyay inuu markii hore dhaco 28 bishan ayuu Khayre uga baaqday magaalada dhuusamareeb maadaama musiibadii X Control Afgooye ay dhacday, balse wuxuu gaaray dhuusamareeb xalay fiidkii, waxaana garoonka dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wasiiro halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale xildhibaano heer federaal ah oo dhuusamareeb u joogay dhismaha maamulka Galmudug iyo guddiga doorashooyinka maamulkaasi.
ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb waqtigii uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka soo degayay waxaa si buuxda la wareegay ciidamo si gaar ah u tababaran oo hordhac u ahaa safarka ra-iisul wasaare xasan cali khayre sidii looga bartay madaxda ahlu sunna madaxda dowladda federaalku marka ay tagaan dhuusamareeb waa ay ka hortagi jireen oo garoonka ayay ku soo dhaweyn jireen balse warar ay heshay idaacadda Simba ayaa waxay sheegayaan in xalay soo dhaweyntii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee dhuusamareeb uusan qayb ka ahayn macalin maxamuud oo ah wadaadka ugu sarreeya ahlu sunna wal jamaaca lama oga sababta ka dambeysa in uu ka maqnaado kulankaasi iyo soo dhaweynta balse waxaa jirta xurguf hoose oo ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka weli u dhaxaysa inkastoo la heshiiyey xalay markii uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre tagay xarunta inji ayaa warar ay heshay idaacadda Simba waxa ay tilmaamayeen in israsaasin kooban ay dhex martay ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo ciidamo daacad u ahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan israsaasintaas ayaa la sheegay inay sababtay dhimasho dhaawac laba ruux oo shacab ayaa la sheegay in ay ku dhaawacween oo mid kamid ah ay tahay haweeney waxaa sidoo kale jirta warar aan helayna oo sheegaya in xalay isla markiiba ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo kulan degdeg ah iskugu yeeray dhammaan hay-adaha amniga dhuusamareeb si wax looga weydiiyo dhacdadan iyo qaabka u dhacday iyo weliba magaalada dhuusamareeb waxa keenay in amnigeed uu faraha ka baxo maadaama dhowr jeer oo hore dilal iyo sidoo kale waxyaabo kala duwanba ay ka dhaceen sidoo kale waxaa jirta in kulamadu ay warbaahintu dibajoog ka ahayd lamana oga waxyaabaha looga hadlay isla maantana waxaa la filayaa in ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu kulan la qaato guddiga farsamo iyo doorashooyinka maamulka galmudug hay-adda sirta ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka been sheegtay qoraal shalay ka soo baxay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qoraal shalay ka soo baxay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay weerarkii ku bilowday qaraxa oo ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye 100 ruux ayaa ku dhintay weerarkaasi tiro intaa ka badanna way ku dhaawacmeen dhowr iyo 10 ruuxna raq iyo ruux ayaa la la'yahay tanina waxay noqotay mid fajac iyo la yaab ku noqotay shacabka ku dhaqan magaalada tan Muqdisho iyo guud ahaanba dalka maadaama dadka ugu badan ay halkaas ku dhintay ahaayeen arday iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka waxay soo saartay qoraal ay sheegayso in qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye ay ka dambeysay amaba ay ku lug lahayd dowlado shisheeye waxaase aysan hay-addu carabaabin wadankaasi wadanka uu yahay waraysi gaar ah oo idaacadda Simba siiyay Daahir Cabdiqaadir oo mar xildhibaan dowladda ku meel gaarkeed ka soo noqday ayaa waxa uu sheegay in qoraalka hay-adda uu yahay mid marin habaabin ah isla markaana lagu soo beegay waqti dowladda laga sugayo inay jawaab cad ka keento sababta keentay in weerarkaas halkaas uu ka dhaco isla markaana wadooyinka ay xiran yihiin sidoo kale Daahir oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in looga baahnaa hay-adda hadiiba ay xog hayso in ay soo dhamaystirto balse iyadoo qabyo ah aysan shacabka u soo bandhigin hay-adii sirta ama sirdoonka oo la rabay wax walba in ay xogtiisa buuxda inay hayso iyadoo aan been buunbuunin iyo been ahayn sababtoo ah ka beenseegidda xogtu waa wixii dumiyey dowladdii militariga ahayd ina ka burburtay 90kii xog beena oo lagu dhaqmayay ayaa burburisay dalkiina waa gaaray meesha aynaan isaga sheekaynin marka waxaa nasiib darro ah hay-addii la rabay maanta inay inta active noqoto xogta sida ay tahay ugu dhaqanto maanta in ay leedahay dalka wax kama hayo ama dalkii anigu aan joogay oo mas-uulka ka ahaa ayaa dad dowlado ajnabiya ayay wax ka fuliyeen oo ay qarax kusoo farsameeyeen hadda kan isku qarxinayaa ajnabi baa wata gaariga nin Soomaali baa wada soo maahan marka maxariir ku leeyihiin imaaraadku ay waxaa kusoo codoraan goboladaas Afgooye iyo soonaha u dhow marka adeertaasu waxay cadaynaysaa hay-adda NISA waxay soo gudbisay ciddii ku raacdayba
dowladda nabad iyo nolol labaha halkudhega ka dhigatay fashilkooda siyaasadeed ayaa meesha ka muuqda marka arrintaa iyada ah way ku fashilmeen hoggaanka dalka oo dhanna way ku fashilmeen si kastaba ha haatee hadalka mas-uulkan horey uga tirsanaa xildhibaanadii dowladihii ku-meel gaarka ahayd waxa uu ku soo aadayaa iyada oo la filayo in hay-addu inta kale ay soo bandhigto islamarkaana ay daha ka qaado wadamo la sheegay inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee ka dhacay exgoyska ex control afgooye ee muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa xalay kulan waxay la qaateen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. labadaasi mas-uul ayaa si aada u dhaliila habdhaqanka hadda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaana kulanka diiradda lagu saaray sida ay wararku tilmaamayaan sidii wax looga qaban lahaa ama loo cadeyn lahaa doorashada ka dhacaysa Soomaaliya 2020 ilaa 2021 iyo qaabka ay noqonayso doorashadaasi. Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud isku aragti ayay qabaan oo waxa ay qabaan in doorasho hal qof iyo hal cod ah aysan ka dhici karin Soomaaliya maadaama dhul badan al-shabaab haystaan, amni uusan jirin, Somaliland ay weli wax tabanayaan, Puntland sidoo kale, Jubbaland warkeeda badaa iyada oo waxa aan la xalina doorasho hal qof iyo hal cod aysan dhici karin. sida madaxweyne Farmaajo isna uu doonayo inay noqoto doorashadan inay noqoto hal qof iyo hal cod. haddii arrintaas ay dhacdo Farmaajo sida ay wararku tilmaamayaan xilka madaxweynaha waa uu ku soo laaban doonaa. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa isku aragti ka qaba hanaanka doorasho ayaa waxay noqon doonto. Khayre iyo Mursal ayaa waxay qabaan in doorashadan loo celiyo tii Farmaajo lagu soo doortay oo kale, isla markaana xildhibaan ay soo doortaan madaxweynaha ilaa inta xasilooni buuxda laga helayo wadankan. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta la filayaa inuu isla gudoomiyo shir ay yeelan doonaan xubnaha golaha shacabka, waxaana akhrinta saddexaad la marsiin doonaa sharciga doorashooyinka. sidoo kalena waxaa jirta in weli uu muran ka taagan yahay qaabka doorasho ay noqon doonto doorashada soo aadan. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa la soo taagay xogayihii arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee Somaliland. Faysal Ramaax ayaa hadda Saleemaan Ramaax ayaa hadda waxaa lagu eedeynayaa in uu aflagaadeeyay beena ka sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax. maxkamadda ayaa la soo taagay waxaana lagu amray in dib loo dhigo maxkamadeyntiisa, laakiin xubnaha ugu firfircoon xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee Somaliland ayaa waxa ay tilmaamayaan in arrintan ay ka dambayso arrimo siyaasadeed. gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda xisbiga UCID oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku tilmaamay arrintan inay tahay mid siyaasadeysan, isagoo sheegay in Baasha uu cafiyay Saleebaan waxa hadda lagu haystana ay tahay qalad. gudoomiyihii maxkamadda gobolka ayaan u galnay annagoo UCID iyo wadaniba ah ka kooban oo 5 qof ah iyo ninkii looyarka u ahaa ay u qabteen UCID inteedaas u galnay. warqadii buu noo akhriyay, wuxuu sheegay Baasha inuu arrinta ka noqday oo uu faraha ka qaaday oo wax dambiyaha uu ku haysto Ramaax aanu jirin. Maxamuud Cali hayste xogayaha inaan wuxuu ku haystaa haba yaraatee aanu jirin ayuu sheegay gudoomiyihii baarlamaanka. sidaas ay tahay waxaad moodaysaa markii horena korneylkii CID-da haystay wuxuu ku hadlay isagoo aad moodaysaa in la soo eriyaday oo farka naxsan ayuu sheekeeyay. wuxuu ku sheekeeyay inuu Ramaax yahay dambiile, taasoo ahayd inaanu kaba sheegin meesha. 2 qodob uu soo qaatay oo mid ahaa 268 oo ahaa qofku inuu magaciisa been abuur ka sheegay, iyo qodob kale oo 382 iyo ahaa 38 something ahaa imanka nambarkiisii saan uma saxayo. 2 qodob uu soo qaatay, labaduba 2 qodob oo Somali Penal Code-ka ku qoran, wax dastuurkeena ku qoran maaha, waana wax ka laalan dastuurkeena. marka
arrintii sidaa ahayd ee ay labadaas wuxuuna yidhi waxaa haysta keliya oo si shakhsiyana u haysta guddoomiyaha maxaa ahayd ee baarlamaanka baashe. weli warkaha subaxnimo ee raadiyaha Simba ayaad maqlaysaan. wararka dibadda haddaan eegno, weerar khasaare kala duwan geystay ayaa waxa uu ka dhacay dalka Congo. ugu yaraan 23 qofood ayaa ku geeriyootay, tiro intaa ka badan dhaawacyo ayaa soo gaaray ka gadaal markii weerar ay ku qaadeen dagaalyahano hubeysan dad shacab ah oo ku nool qaybo ka mid ah bariga waddanka Congo, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda Congo. saraakiisha booliiska iyo maamulka degmada ay wax ka dhaceen ayaa waxay sheegeen in weerarku u dhacay xalay habeenbarkii, isla markaana uu sababay dhimasho dhaawac. gobolka uu ka dhacay weerarkan waxaa lagu magacaabaa Beni, dalka Congo ayuu dhacaa. afhayeen u hadlay maamulka gobolka Beni ay lagu magacaabo Donota Kabutuha ayaa u sheegay wakaalada wararka AFP in ay xaqiijiyeen dhimashada 23 qofood. ilaa haddana ay raadinayaan dad ku dhex markaasi jira kaymaha waddankaasi. waxaa sidoo kale jirta in madaxweynaha dalka Congo uu si kulul u cambaareeyay weerarkan. warkii subax waad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta. subax wanaagsan dhagaystayaal, ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa kulan dhuusamareeb kula qaatay laamaha amniga dhuusamareeb xilli israsaasayn ay dhex martay ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda. al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar dhimasho badan sababay oo ka dhacay isgoyska caanka ah ee Ex Control Afgooye ee Muqdisho. hay-adda sirta ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka been sheegtay qoraal ay shalay ka soo saartay qaraxii Ex Control Afgooye ee Muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynayaashii hore ee dalkan soo maray. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa la soo taagay xogayay arrimaha gudaha xisbiga UCID ee Somaliland iyo Faysal Cali Waraabe oo ku baaqay banaanbax ka dhanaa Somaliland iyo maxkamadaasi. akhbaaraadka dibadda waxaan idiin haynaa weerar khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay dalka Congo iyo dowladda Faransiiska oo ka digtay in ciidamo loo diro dalka Liibiya. subax wanaagsan dhagaystayaal, waa subaxnimo talaado ah, tirsiga taariikhduna waa 31 bisha 12 sanada 2019. hordhicii warka subax ee raadiyaha Simba ayaad maqasheen. iminkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar sababay dhimasho dhaawac badan oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. bayaan ka soo baxay al-shabaab ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay weerar sababay dhimasho dhaawac oo ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. sabtidii oo taariikhdu ahayd 28 bishan dabayaaqada ah ee 2019 subax hore ayaa waxaa qarax xoogan uu ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee Ex Control Afgooye. marka uu qaraxu dhacayna halkaasi waxaa ku sugnaa dad aad u badan oo iskugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan. dadka ugu badan oo waxyeeladu ay soo gaartay waxay ahaayeen dad shacab ah, weliba dad u sii badnaa arday waqtigaasi u kala hayaamayay waxbarashadooda si ay u soo gutaan duruustooda. sidoo kale waxaa jira khasaare iyana soo gaaray sida ay wararku sheegayaan 2 shakhsi ama 2 injineer oo dhisaysay wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo sida ay wararku sheegayaan bartilmaamoodku iyagoo ahaa iyo sidoo kale ciidamo iyaga markaasi waardiya u ahaa. afhayeenka al-shabaab oo warbaahinta xarakada
warbaahinta al-shabaab la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay qirayaan in dhimasho badan uu dhaliyo weerarkaasi dad shacabana ay ku dhinteen balse shacabkii halkaasi ku geeriyooday ayuu afhayeenku sheegay inay yihiin kuwa shuhada ah. bartilmaameedka iyagu waxa uu ahaa kuwa kusoo duulay dalkeenna waana sii wadi doonaa ilaa aan ka sifayn doono ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa afhayeenka al-shabaab. sidoo kale waxaa jirta inuu ka hadlay bartilmaameedkoodu meeshu ahaa wuxuuse sheegay in ay bartilmaameedkoodu ahaa injineero u dhashay dalka Turkiga oo gacanta ku hayay dhismaha wadada dheer ee xiriirisa Afgooye iyo sidoo kale magaalada Muqdisho. dadka shacabka qaybahooda kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiyay arrintanna waxay ku soo aadaysaa iyadoo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay sheegtay in weerarkii sababay dhimashada dhaawaca badan ee ka dhacay Ex Control Afgooye Muqdisho ay ku lug lahaayeen dowlado shisheeye. xogta hordhacana ay gudbiyeen madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laakiinse lama oga isla markaana tafaasiil lagama bixin karo waxa isku soo beegay sheegashada al-shabaab iyo qoraalka ka soo baxay NISA. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xalay Dhuusamareeb waxa uu kulan degdeg ah kula qaatay laamaha amniga Dhuusamareeb kadib shaqaaqa xalay ka dhacday Dhuusamareeb. safar la qorsheeyay inuu markii hore dhaco 28 bishan ayuu Khayre uga baaqday magaalada Dhuusamareeb maadaama musiibadii Ex Control Afgooye ay dhacday balse wuxuu gaaray Dhuusamareeb xalay fiidkii waxaana garoonka Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wasiiro halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale xildhibaano heer federaal ah oo Dhuusamareeb u joogay dhismaha maamulka Galmudug iyo guddiga doorashooyinka maamulkaasi. ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb waqtigii uu Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ka soo degayay waxaa si buuxda loo wareegay ciidamo si gaar ah u tababaran oo hordhac u ahaa safarka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. sidii looga bartay madaxda ahlu sunna madaxda dowladda federaalku marka ay tagaan Dhuusamareeb waa ay ka hortagi jireen oo garoonka ayay ku soo dhaweyn jireen balse warar ay heshay idaacadda Simba ayaa waxay sheegayaan in xalay soo dhaweyntii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ee Dhuusamareeb uusan qayb ka ahayn Macalin Maxamuud oo ah wadaadka ugu sareeya ahlu sunna wal jamaaca. lama oga sababta ka dambeysa in uu ka maqnaado kulankaasi iyo soo dhaweynta balse waxaa jirta xurguf hoose oo ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka weli u dhaxaysa inkastoo la heshiiyay. xalay markii uu Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre tagay xarunta Inji ayaa warar ay heshay idaacadda Simba waxa ay tilmaamayeen in israsaasayn kooban ay dhex martay ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo ciidamo daacad u ahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. israsaasayntaas ayaa la sheegay inay sababtay dhimasho dhaawac 2 ruux oo shacab ayaa la sheegay in ay ku dhaawacween oo mid ka mid ah ay tahay haweeney. waxaa sidoo kale jirta warar aan helayna oo sheegaya in xalay isla markiiba Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulan degdeg ah iskugu yeeray dhammaan hay-adaha amniga Dhuusamareeb si wax looga weydiiyo dhacdadan iyo qaabka u dhacday iyo weliba magaalada Dhuusamareeb waxa keenay in amnigeed uu faraha ka baxo maadaama dhowr jeer oo hore dilal iyo sidoo kale waxyaabo kala duwanba ay ka dhaceen. sidoo kale waxaa jirta in kulamadu ay warbaahinta dibajoog ka ahayd lama oga waxyaabaha looga hadlay isla maantana waxaa la filayaa in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu kulan la qaato guddiga farsamo iyo doorashooyinka maamulka Galmudug. hay-adda sirta ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka been sheegtay qoraal shalay ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. qoraal shalay ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay weerarkii ku bilowday qaraxa oo ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye. 100 ruux ayaa ku dhintay weerarkaasi tiro intaa ka badanna way ku dhaawacmeen dhowr iyo 10 ruuxna raq iyo ruux ayaa la la'yahay. tanina waxay noqotay mid fajac iyo la yaab ku noqotay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka maadaama dadka ugu badan ee halkaas ku dhintay ahaayeen arday iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada.
hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka waxay soo saartay qoraal ay sheegayso in qaraxii ka dhacay ex control afgooye ay ka dambeysay amaba ay ku lug lahayd dowlado shisheeye waxaase aysan hay-addu carabaabin waddankaasi waddanka uu yahay. waraysi gaar ah oo idaacadda Simba siiyey Daahir Cabdiqaadir oo mar xildhibaan dowladii ku-meel gaarkeed ka soo noqday ayaa waxa uu sheegay in qoraalka hay-adda uu yahay mid marin habaabin ah isla markaana lagu soo beegay waqti dowladda laga sugayo inay jawaab cad ka keento sababta keentay in weerarkaas halkaas uu ka dhaco isla markaana wadooyinka ay xiran yihiin. sidoo kale Daahir oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in looga baahnaa hay-adda hadiiba ay xog hayso in ay soo dhammaystirto balse iyadoo qabyo ah aysan shacabka u soo bandhigin. hay-addii sirta ama sirdoonka oo la rabay wax walba in ay xogtiisa oo buuxda inay hayso iyadoo aan been buunbuunin iyo been ahayn. sababtoo ah ka beenseegidda xogtu waa wixii dumiyey dowladdii militariga ahayd ina ka burburtay 90-kii. xog been ah oo lagu dhaqmayay ayaa burburisay dalkiina waa tilgaaray meesha aynaan isaga sheekaynin. marka waxaa nasiib darro ah hay-addii la rabay maanta inay inta active noqoto xogta sida ay tahay ugu dhaqanto maanta in ay leedahay dalkan wax kama hayo ama dalkii anigu aan joogay oo mas-uulka ka ahaa ayaa dowlado ajnabiya ayay wax ka fuliyeen oo ay qarax kusoo farsameeyeen. hadda kan isku qarxinayaas ajnabi baa wata gaariga nin Soomaali baa wada soo maahan. marka maxariir ku leeyihiin imaaraadku ay waxaa kusoo codoraan goboladaas afgooye iyo soonaha u dhow. marka adeertaasu waxay cadaynaysaa hay-adda nisa waxay soo gudbisay iyo ciddii ku raacdayba dowladda nabad iyo nolol labaha halkudhaga ka dhigatay fashilkooda siyaasadeed ayaa meesha ka muuqda. marka arrintaa iyada way ku fashilmeen, hogaanka dalka oo dhanna way ku fashilmeen. si kastaba ha ahaatee hadalka mas-uulkan horey uga tirsanaa xildhibaanadii dowladihii ku-meel gaarka ahayd waxa uu ku soo aadayaa iyada oo la filayo in hay-addu inta kale ay soo bandhigto islamarkaana ay daha ka qaado wadamo la sheegay inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee ka dhacay exgoyska ex control afgooye ee muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa xalay kulan waxay la qaateen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. labadaasi mas-uul ayaa si aada u dhaliila habdhaqanka hadda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana kulanka diiradda lagu saaray sida ay wararku tilmaamayaan sidii wax looga qaban lahaa ama loo cadeyn lahaa doorashada ka dhacaysa Soomaaliya 2020 ilaa 2021 iyo qaabka ay noqonayso doorashadaasi. Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud isku aragti ayay qabaan oo waxay qabaan in doorasho hal qof iyo hal cod ah aysan ka dhici karin Soomaaliya maadaama dhul badan al-shabaab haystaan, amni uusan jirin, Somaliland ay weli wax tabanayaan, Puntland sidoo kale, Jubbaland warkeeda badaa iyada oo waxaan la xalina doorasho hal qof iyo hal cod aysan dhici karin. sida madaxweyne Farmaajo isna uu doonayo inay noqoto doorashadan inay noqoto hal qof iyo hal cod. haddii arrintaas ay dhacdo Farmaajo sida ay wararku tilmaamayaan xilka madaxweynaha waa uu ku soo laaban doonaa. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa isku aragti ka qaba hanaanka doorasho ayaa waxay noqon doonto. Khayre iyo Mursal ayaa waxay qabaan in doorashadan loo celiyo tii Farmaajo lagu soo doortay oo kale isla markaana xildhibaan ay soo doortaan madaxweynaha ilaa inta xasilooni buuxda laga helayo wadankan.
gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta la filayaa inuu isla gudoomiyo shir ay yeelan doonaan xubnaha golaha shacabka waxaana akhrinta saddexaad la marsiin doonaa sharciga doorashooyinka sidoo kalena waxaa jirta in weli uu muran ka taagan yahay qaabka doorasho ay noqon doonto doorashada soo aadan. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa la soo taagay xogayihii arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee Somaliland Faysal Ramaax ayaa hadda Saleemaan Ramaax ayaa hadda waxaa lagu eedeynayaa in uu aflagaadeeyay beena ka sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax. maxkamadda ayaa la soo taagay waxaana lagu amray in dib loo dhigo maxkamadeyntiisa laakiin xubnaha ugu firfircoon xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee Somaliland ayaa waxa ay tilmaamayaan in arrintan ay ka dambayso arrimo siyaasadeed. gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda xisbiga UCID oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku tilmaamay arrintan inay tahay mid siyaasadeysan isagoo sheegay in Baasha uu cafiyay Saleebaan waxa hadda lagu haystana ay tahay qalad. gudoomiyihii maxkamadda gobolka ayaan u galnay annagoo UCID iyo wadaniba ah ka kooban oo 5 qof ah iyo ninkii looyarka u ahaa ay u qabteen UCID inteedaas u galnay warqadii buu noo akhriyay wuxuu sheegay Baasha inuu arrinta ka noqday oo uu faraha ka qaaday oo wax dambiyo uu ku haysto Ramaax aanu jirin Maxamuud Cali hayste xogayaha inaan wuxuu ku haystaa haba yaraatee aanu jirin ayuu sheegay gudoomiyihii baarlamaanka sidaas ay tahay waxaad moodaysaa markii horena korneylkii CID-da haystay wuxuu ku hadlay isagoo aad moodaysaa in la soo eriyaday oo farka naxsan ayuu sheekeeyay wuxuu ku sheekeeyay inuu Ramaax yahay dambiile taasoo ahayd inaanu kaba sheegin meesha 2 qodob uu soo qaatay oo mid ahaa 268 oo ahaa qofku inuu magaciisa been abuur ka sheegay iyo qodob kale oo 382 iyo ahaa 38 something ahaa iminka numberkiisii saan uma saxayo 2 qodob uu soo qaatay labadaba 2 qodob oo Somali Penal Code ku qoran wax dastuurkeena ku qoran maaha waana wax ka laalan dastuurkeena marka arrintii sida ahayd ee ay labadaas wuxuuna yiri waxa haysta kaliya oo si shakhsi ah u haysta gudoomiyaha macaahayd ee baarlamaanka Baashe. weli warka subaxnimo ee raadiyaha Simba ayaad maqlaysaan. wararka dibadda haddaan eegno weerar khasaare kala duwan geystay ayaa waxa uu ka dhacay dalka Congo. ugu yaraan 23 qofood ayaa ku geeriyootay tiro inta ka badan dhaawacyo ayaa soo gaaray ka gadaal markii weerar ay ku qaadeen dagaalyahano hubeysan dad shacab ah oo ku nool qaybo ka mid ah bariga wadanka Congo sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda Congo. saraakiisha booliiska iyo maamulka degmada ay wax ka dhaceen ayaa waxay sheegeen in weerarku u dhacay xalay habeen barkii isla markaana uu sababay dhimasho dhaawac. gobolka uu ka dhacay weerarkan waxa lagu magacaabaa Beni dalka Congo ayuu dhacaa. afayaan u hadlay maamulka gobolka Beni ay lagu magacaabo Donota Kabutuha ayaa sheegay in wakaalada wararka AFP in ay xaqiijiyeen dhimashada 23 qofood ilaa haddana ay raadinayaan dad ku dhex markaasi jira kaymaha wadankaasi. waxaa sidoo kale jirta in madaxweynaha dalka Congo uu si kulul u cambaareeyay weerarkan. warkii subax waad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta